kudwaad 100 xildhibaan oo kamid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed mid amni dalka oo iminka uu marayo xildhibaanadan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka waqtigiisu ilaaday ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo oo ah madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday iyo xukuumaddiisaba ay doonayaan in muddo kordhin ay sameystaan taas ay sheegeen inay aad ugu xun yihiin isla markaana ay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne Farmaajo oo madaxweyneedkiisu ku ekaa 8 Febraayo waxay sidoo kale digniin ay u direen xildhibaanadan oo gaaraya 100 xildhibaan kana mid ah labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay ka feejignaadaan inay caburiyaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan madaxweyne Farmaajo kulanka kadib xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warfidiyeenka ugu warbixiyay kulankii ay wada qaateen xildhibaanada ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulan ay iskugu yimaadeen kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugana arrinsanayeen xaaladaha ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya ee maalmihii la soo dhaafay isbedelayay iyo sidoo kale marxaladdan kala guurka ee runtii aad iyo aad dhibka badan ee dalkeena iyo dadkeena oo maanta ay ku sugan yihiin waxaan halkaan idin kula wadaagi doonaa qodobo ka soo baxay shirkan kutlada badbaado qaran ee golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta ku yeelatay magaalada Muqdisho marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa golaha badbaado qaran oo ah madal u taagan badbaadinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qabashada doorasho xor iyo xalaal ah sidii dalka ay uga dhici lahayd sidoo kale waxaa maantay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee kutlada badbaado qaran halkan ku saxiixeen petition lagu cadeynayo mowqifka kutlada badbaado qaran iyo sida dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin karo qatarta ku soo fool kale petitionkan waxa kale oo ku jira baaqan u dirayna dadka Soomaaliyeed dawladaha iyo hay'adaha dawliga ee daneeya arrimaha Soomaaliya si aan ugu cadeyno qatarta Farmaajo ku yahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo qoriga dab kale ee uu la meehanaabayo sidii dalka iyo dadka Soomaaliyeed looga badbaadin lahaa fidnada hormuudka uu ka yahay ee la doonayo dalka in dib loogu celiyana la iskaga kaashan lahaa sidii looga hor istaagi lahaa sidoo kale waxaan baaqanagan ku cadeynay ama ku cadeynaynaa ugana digaynaa saraakiisha Farmaajo uu adeegsanayo burburinta dalka iyo adeegsiga awoodda ciidan ee baalmarsan shuruucda dalka iyo hay'adaha dimuqraadiga ah curdunka ee dalka Soomaaliya ka qaaday muddooyinkii la soo dhaafay waxaan leenahay nimaan idin furi doonin iyo idin rarin dambiga aad ka gashiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed berita adinka ayaa la idin kula xisaabtami doonaa ee Farmaajo idin kama difaaci doon waxaan sidoo kale halkan ka cadeynaynaa oo kutladu ka cadeynaysaa inaanan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dawladda ee Farmaajo oo gadaal ka riixay doorashadan uu ku diidan yahay waxaanan uga digaynaa guddoonka baarlamaanka federaalka inaan dalkan lagu dumin gacmahooda mana shaqayn doontaa waxaan idin leenahay ceeb iyo foolxumo ummadda Soomaaliyeed idinkuna u soo jeedinina dalka iyo dadkana ceeb aysan ka soo waaqsi karin gorodda u gelinina ayaan idin leenahay ee walaalayaalow dalka u tura dastuurka u hoggaansama haddii aad ka shaqaynaysiin sidii loo tabantaabi lahaa ama dadka la isku keeni lahaa mas'uuliyaddeeda qayb inaad ka qaadatiin laakiin aadnan hormuud ka noqonin fitno dalka iyo dadka Soomaaliyeed lagu duminayo aad iyo aad u mahadsantiin